Waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij qaybtii labaad ee barnaamijkeena aynu ku faaqideynay xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga inagoo hore u soo qaadanay taariikhdiisii hore ee markii Cusmaaniyadu ka talinaysay Turkiga iyo sidoo kale Soomaaliya qayb ka mid ah markii ka talinaysay dawladii Adal ku soo dhawaada qaybta labaad ee barnaamijkeena fadlan haddii aad ku cusub tahay waqooyi channel subscribe haddii kalena share iyo like xiriirkii Cusmaaniyiinta iyo Soomaalidu waxa uu raadadkii ugu muuqa dheeraa yeeshay ku yeeshay dhulka Soomaalida qarnigii 16aad oo uu dawladda Cusmaaniyiinta hogaaminayay Sultan Suleymaan al-Qaanuuni raadadkaas waxa ilaa hadda lagu arkaa qaybo kamid ah dhulka Soomaalida kuwaas oo aynu ka xusi karno gacan biyoodka buurta Duubaar ka yimaada ee waraabiya magaalada Berbera iyo sida oo kale masaajido iyo dhismayaal kale oo ay dhiseen burburkii dawladda Cusmaaniyiinta kadib ayaa xiriirkaas muddada dheer soo jiray Soomaaliya iyo Turkigu uu hoos u dhacay walow aanu go'in oo xitaa la xasuusan yahay in labada dal ay sanadkii 1969 kaalin iskaashi oo muhiim ah kaga jireen aasaaskii ururka midowga Islaamka si kastaba ha ahaatee nidaamkii diinta iyo dawladnimada kala fogeynayay ee uu hogaaminayay Mustafa Kemal Atatürk oo awoodda dalka ku ururiyay gacanta militariga ayaa keenay in ay si aad ah hoos ugu dhacdo guud ahaan ka muuqashadii Turkiga ee fagaarayaasha caalamka markii uu talada dalka Turkiga yimid xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee uu hogaaminayo madaxweynaha hadda talada haya ee Rajab Tayyip Erdogan oo bilowgii xilkiisu ahaa ra'iisul wasaarenimo ayaa waxa uu dalka ka hirgeliyay isbeddello muhiim ah oo saameeyay siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkiga isagoo guud ahaan qaaradda Afrika kaalin mug leh ka siiyay istiraatiijiyadiisa dhinaca horumarinta dhaqaalaha istiraatiijiyadaas oo ay kamid ahayd in xukuumadda xisbiga cadaaladda iyo horumarka ay garwaaqsatay muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay Turkiga oo awood badan iyo sidoo kale kaalinta wax ku oolka ee ay ka qaadan karto xasilinta iyo dhismaha qaranka jilbaha u dhacay rubuc qarni isha kaliya ee dunida ee reer galbeedku u badan yahay ku eegaan ay ahayd inay siiyaan gargaar bini'aadanimo waan dowrayaa oo waan dhisayaa waan dowrayaa oo waan dhisayaa dhanka aan haye Soomaalidu dhammaan dadkii waxay rabtaa wuu dhimanayaa Soomaalidu dhammaan dadkii waxay rabtaa wuu dhimanayaa wuu dhimanayaa